maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay shaqaale weynaha dowladda hoose ee degmada Berbera. Kulankan ayaa lagu dardargelinayay howlaha shaqo dowladda hoose ee degmada Berbera, waxaana kulankaasi ka qabsoomay barxadda dowladda hoose. Waxa goobjoog ahaa kulankaasi maayirka degmada Berbera, xogayaha fulinta dowladda hoose, agaasima waaxeedyada kala duwan ee dowladda hoose iyo shaqaale weynaha dowladda hoose ee degmada Berbera. Waxaana ugu horeyntiiba halkaasi ka hadlay maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo xogayaha fulinta dowladda hoose Cabdikariin Aadan Cadde. waxayna shaqaalaha dowladda hoose kula dardaarmeen inay dardargeliyaan howlaha shaqo ee dowladda hoose. sidoo kalena waxay shaqaalaha dowladda hoose ugu bushaareeyeen in loo kordhiyay mushaharkii 30%. waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladoodii ka mid ahaa: maanta oo aynu ku jirno 24 bishii koowaad ee 2019 waxaynu isugu soo baxnay ama isugu nimid barxaddii dowladda hoose ee magaalada Berbera, inagoo kulankeena daaran yahay kulankii sanadlaha ahaa ee sanad kasta bilowgiisa aynu isugu imin jirnay, isla markaana aynu isku wareysan jirnay shaqadana aynu ku dardargelin jirnay. waxaan idinka mahadnaqaynaa inagoo ka shaqeynaa xafiisyo kala duwan iyo qaybo kala duwan oo magaalada gudaheeda kala fog, in dhammaantiinba inta aynaan shaqada bilaabin amarkii sidiisii u qaateen oo agoor hore timaadeen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa. wararkii shaqada ee 2019 iyo dardargelinta waxaan hubin idinka mahadnaqaynaa sidaan ula dardargeliseen shaqada. runtii dardaarankeenu waxa weeyaan inay Berbera ahaato dhammaadka 2019 magaalo cagaaran oo haddii Ilaahay yiraahdo nadiifa. isbedelo waaweyn runtii way soo socdaan. waxaan idinku bashaareynaa qaybtii ugu horeysay ee dardargelinta nadaafadda 3 gaari oo gawaadhidii qafileyda oo gawaadhidii inaga harsanayd iyo wiish inay maanta dikadeyno. mar labaad waxaan idinka mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha shaqaalaha dowladda hoose sida wanaagsan ee imika hagar la'aanta ee ay u shaqeynayaan maamulkooda loogiye. waxaan u mahadcelinayaa golaha deegaanka ee degmada Berbera oo mar qura aan caqligooda iyo maskaxdooda aanu ka bixin adeegayaasha bulshada ee iyagoo hoos yimaada. weli ka warhayaan golaha deegaanku. waxaan idin horreysiinayaa bushaarada idin horreysiinayaa si aan dardaaranka aan u dambeysisano. waa markii shanaad ee golaha deegaanku degmada Berbera waqtigii muddaxileedkii ay hayeen. waa markii shanaad ee shaqaalaha dowladda hoose ay mushaar kordhin u sameeyeen. 2019 qof kasta oo shaqaalaha dowladda hoose ka shaqeeya oo shaqo ku jira oo dhiyutiga ku jira intaan ognahay anagu qofkaan shaqada ku jirin kuma jiro. inagu waxaa laga doonayaa inaynu wax bedelno, inaynu wax ka bedelno nolosheena, inaynu dhaqaalaheena kobcino, inaynu himilo yeelano, inaynu han yeelano, inaynu ogaano raasiqu inuu Ilaahay yahay subxaana watacaala. adiga waxa ku saaro qura waa dadaal. adiga laguma dirin xagee ka maraysaa lacagtu. sanadka 2019 waxaynu sameynaynaa waxaynan hore u samayn jirin. waan ugu bishaareynaya inaynu isku kalsoonahay, inaynu ka duwanahay maamulada kale ee dhigeena ah. waxaynu sameynaynaa xisaab celin baynu sameynaynaa. waxaan hor fadhiisanaynaa bulshadeeda. waxaan u sharxaynaa sanadkii 2018 dakhligii dowladda hoose soo galay ee degmada inuu ahaa intaa iyo intaa iyo intaa. dakhligiina soo galay kharashkii baxayna inuu ahaa intaa iyo intaa. wixii lagu qabtay, haddii nadaafad lagu qabtay, haddii nabadgelyo lagu qabtay, haddii caafimaad lagu qabtay, haddii waxbarasho lagu qabtay, haddii dhismayaal lagu qabtay, haddii wadooyin lagu qabtay, hortoodaanu sharxaynaa. bulshadana waxaan siin doonaa inay naga weydiiyaan miisaaniyadayadii hore 2018 dhaqdhaqaaqeedii oo tolo maxay tahay, maxaa inoo dheeraanayaa. life bay ahaanaysaa. life adduunka inta afka Soomaaliga ku hadasho dhani way daawan doontaa.
cabdirasaaq qaasin jaamaca telefishinka Sam News magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil.